معايا هدانا هودياش دغان كبيش الدراب او جوجو او فوقوي كوفر بكتوبن وعمبارينا waxaan soo sheegaynaa laba qodob dawladda labada wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha qorshaynta waxaan u sheegaynaa barnaamijka ku dhaqmayaan waa cunsuriyadna waxaan u sheegaynaa madaxweyne farmaajo waxaan leenahay waxa ka timid Mareykankana waxaan noola sheegtay dimuqraadiyo wax yaraad jiro Mareykanka ba ilhaama ka diiday cunsuriyadda ninka uu ku dhaqmayay Trump ku dhaqmayay salayna 240 inta u cadeysay cunsuriyadda labadan wiil oo hadda qaabka wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha qorshaynta oo magaca Soomaaliyeed huwan oo hadana cunsuriyadda abaabulayo waa idin aragnay idin kama yeelina leena ay horta labada saasaan leena waxaan dib isku garta dadka Soomaal beesha direed koonfur ha joogo waqooyi ha joogo waa ila aragtay inaad cunsuriyad ku dhaqmaysiin mana aynan ka aqbalin idinka intaas aad ku filan ha ku ceeboobina mar dambana ku noqonina dawladda waxaan leenahay madaxweynaha uu mas'uuliyadda ka yahay madaxweyne laba isma qabato Soomaali baan nahay laba isma qabato maamaha Soomaaliya waxay jirtay ninkii Soomaaliga ahaa oo haliyayga ahaa Axmed Gurey ah marka ninka la dhigi jiray wiilwaal wuxuu ka hadlay wuxuu yiri Soomaaliya si kastaba waxa kumay walaalo waxa ku dhantay waa la waayay waxaan leenahay mas'aladaas hoos u arag Somaliland shacabkeedo iyo madaxdeedaba laguma dhaqmi kara awoodaan kugu keeni wana yeelaysa Soomaali kaligood ma ahna qabiil yeelayaa la waayay in lagu keeno awoodaan kugu keeni waxa lagu keeni karaa wixii aan ku heshiinay aan dawladdan ku dhisanay ama madaxweynaha kugu dhisanay waxay ahayd beesha direed meel ay jirtaba walaalow iyo maxaa dadayaalnaaban inaan lagu keenay ahayd iskumaan ogeyn ina xuna qabateen iyo awood lagu keeno waxa ku sheegi madaxweyne suurtagal ma aha gabadha agoonta haysato howd ku nool 12 bilood 10 neefo ariga ayada abaarta uga socotay la sugeysay markaba saaratay oo ilaahay xaaji cali baan u dhiibto bari baa la ii keenay insha Allah dooran ka dhigin waxaan ku baqtayna badda casdhaxdeeda haddana waxaan rabaa Soomaaliya inaan xukumo oo waliba dir inaan xukumo oo 73 dhimaan oo dir oo mas'uuliyad bale shacab ila 18 gobol degan oo soo dir ah aan xukumiyo madaxweyne u ahay inaad tiraahdo kaamaana aqbale manana kaayiyo tala soo jeedin waxaan tala ka soo jeedinayaa madaxweyne isma qabatan xoolaha nina shacabka direed meel kastaba ha joogo ama ha ahaade siyaasi xoolaha kama aqli yara neefka looda ah loo leeyahay ku maamaahe neefka looda marka caawa oo dhisi rabta dalaba uu ku dhifatay inaanta weesh ku soo deysatid ama isma suuroobays madaxweyne ana qabateenan saaray shacabkii xoolihii u dambeeyay oo meesha ugu dambeysay ilmaha agoonta loogu safraan badda ku dhamaaday guddiga insa u saaray haddana inay ilaahisiyaan caalamkan aqbali mahayo aqliga saliimkan aqbala mahayo dirna aqbali mayso waxaan ku leeyahay guddiga aad samaysay guddi hadda marxaladiisa la joogo ma waxa ka horeeyay jidka aan ku heshiinay Soomaali wax isku dirsatay oo dir wax kugu dooratay oo markii 70 iyo intaas door ku doorteen xasarada hadda ka taagan dawladdaada oo muujada siyaasadeed aan annaga ka bari noqonon kugu taageernay ma ana ka yeelin cajalada xaalada daji samee walaalnimo iyo hal muujiyo tolnimo Soomaalnimo hal muujiyo dawladdaada ha muujiso marka ka bacdi guddi la abaabuli kara ay waxa la guddiga maaskiisa lama joogo